يراي بوقا meeshaan maxkamad waaye adina ku soco mudana garsoore caruurta mar walba waxay weydiyaan aabahooda sababta uu shaqada ugu mashquulsan yahay anaga waqti nooma haayo markuu guriga joogana shaqo ayuu ku mashquulsan yahay anaga waxaan u baahanahay sheeko sidoo kale dalxiis arabnaa waxaan u baahanahay nolol wanaagsan mudana ganacsade waxa lagu eedeeyay qodobadan soo socdo kow in aad guriga ka soo daahdo habeen walbo in aad waqti la qaadan xaaskaaga iyo caruurtaada iyo in aad mar walba buuq ugu furan yahay maxaad kaga jawaabaysaa arrintaas mudana garsoor waa run waxaan ahay ganacsade mar walbana waxaan ku daalaa xisaab aanan dhammaanaynin alaabteedu waxay dhammaataa anigoon war u haynin lacagteedina waxay luntaa anigoon ogeyn markaan guriga joogana waxaan ku mashquulaa maaraynta xisaabaadkayga iyo ganacsigayga laakiin mudana garsoor iyo aamin aniga xaaskayga nuurta aadaan u jeclahay hay xeer jaale maxaa ku daraysaa adigana waa mahadsantaha mudana garsoore dembigan waa mid ku cad eedaysanahan ninkan ganacsadaha ah waa mid dadaalayo laakiin noloshiisa waxaa halis gelisay nidaam la'aan haddii uu isticmaali lahaa nidaamka casriga ah ee dalmar boos ma jiri lahayn xog lunta ma jiri lahayn waqti ka luma ma jiri lahayn wax badeecad ah oo ka dhammaata sidoo kale ma jiri lahayn wax jahawareer ah maadaama uu dalmar boos u fududaynayo dhammaan maamulka ganacsigiisa reerkiisana maanta maxkamadda ma joogi lahayn mudana garsoore dalmar boos waxaa isticmaala muwaadin kasta oo ganacsado ah haddii ay noqdaan kuwa leh dukaamada kuwa leh makhaayadaha kuwa leh farmashiyada iyo sidoo kale kuwa leh ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe mudana garsoore maxkamadda sharafta leh waxaan codsanayaa in eedaysana cabdi ay ka gaarto maxkamadda go'aan degdeg ah isla markaasna gabadhan iyo caruurteeda ay helaan xuquuqdii ay u baahnaayeen way mahadsantahay maxkamadda sharafta leh amar kadib markii maxkamadda ay dhageysatay garmaqalka dacwada ka dhaxeeya eedaysane cabdi iyo xaaskiisa sidoo kale ay aragtay caddaymaha la soo bandhigay iyo qarashada eedaysanaha waxay maxkamaddu ku xukuntay eedaysane cabdi inuu isticmaalo adeegga dalmar boos maanta laga bilaabana ganacsigiisu wuxuu ku maamuli doonaa nidaam casri ah wuxuuna heli doonaa waqti badan oo uu la qaato xaaskiisa iyo caruurtiisa maxkamadduna waa noo xiran tahay qofkii dood ka qabana racfaan ayaa u furan